maanta ku suganahay waa bartamaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya gaar ahaan wadada dheer ee Maka al-Mukarrama waxa ku sugan kumanaan ka tirsan shacabka Soomaaliyeed oo iyagu ra'yiyadooda kala duwan ka dhiibanaya sida ay u arkaan shirka maanta ka furmay magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska waxaan la dhex qaaday qalbaahiyaha TV-ga codka bariga Afrika guud ahaan shacabka halkan aan kula kulmay waxa ay ka soo horjeesteen shirkani looga hadlayo arrimaha shidaalka ee maanta ka furmay magaalada London iyagoo ku tilmaamay inuu yahay mid lagu boobayo khayraadka iyo shidaalka Soomaaliya anigu waxaan u arkaa Soomaaliya waxay ku heshiin laadahay yaanyadeedii iyo beeraheedii iyo mooskii bay ku heshiin laadahay shidaal iyo waxaan waxba kama taqaanay laga daayo haddii la dhacayo oo isbaaro loo dhiganayo waa gaar shirka asaga rag ayagiiba is haysto heshiin la oo ayagiiba beerahoodii iyo mooskii iyo yaanyadii isku haysa in shidaalkoodii loo shiro macnaheedu waa wax ayaga lagu jaheeyay kolka hore inay isku qabsadaan horta ayaga isqabsadaan dhaxdooda ka bacd shidaalkooda loo tashado marka ilaahay baan leenahay dadna way noo soo bixi doonaan insha Allah waana ka badbaadaynaa waxna leela damacsan yahay ugu baaqaya Soomaaliya waa dad jiro oo dal iyo baarlamaan iyo dhaqan iyo murti iyo wax walba leh waxaan leeyahay Soomaaliya yaan dad kale gacanta loo gelinin oo yaan la badin inay ma aragtay dhibaato iyo dad kale ay u tashadaan shidaalkeeda iyo khayraadkeeda ay uun kale u tashadaan oo ayaga ay waxay doonaan ka sameystaan yaan la badin baan leeyahay madaxweynaha adaana ka mas'uula maanta waxay jir waa lagu weydiinayaa haddaad ka degtid oo hadda intaada madaxweyne noqonin Soomaaliya waxa lagaama weydiinaynin lagumana haysanin haddaad dhimatana waxa lagaama su'aali lahayn laakiin maanta waxa aad waqtiga aad joogtay aad haysato waa lagu su'aalayaa Soomaaliya waxa la wixii ka dhacay hadday khayr yihiin hadday ma aragtay shar yihiinba waxaan ku leeyahay waqtiga aad haysato ka faa'iideyso oo Soomaaliya badbaadi baan leeyahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha baarlamaanka Soomaaliya badbaadi aan leeyahay oo sharta ka badbaadiya qaar ka tirsan dadka aan halkan kula kulmay waxa ay baaq u diraan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyagoona ka codsaday inaysan Soomaaliya geen meel aysan joogin una ka badbaadiyo dumis qaran waxyaabo ay ku tilmaameen waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dawladda cid kastoo mas'uul ah in laga shaqeeyo midnimada Soomaaliya iyo horumarka iyo dalka amnigiisa guud ahaan dib u heshiisiinta iyo waxyaabaha khilaafaadka in la xalliyo sidaas baan aaminsanahay dadweynaha inay taladoodu dhigeystaan waxaan u dirayaa ay joojiyaan waxaan madax adeegan iyagu ay caadaysteen oo ay keligii taliye iyo diktatornimo waddanka waa ku burburay inay joojiyaan dadweynaha ay dhigeystaan oo madaxda ay dhigeystaan baan ugu baaqayaa oo maalin walba ay madax adeega koodaan u shaqeynin dawladda waxa weeye waxaan u dirayaa baaqa aan u dirayaa wuxuu yahay wax kastoo qabanayaan inay soo bandhigaan marka hore taanay heshiisyo umado kale ama dawlado kale aanay la gelin sidaa darteed inay baarlamaanka iyo bulsho weynta oo idaacadaha laga dhagaysto saxaafadaha ay ka sii daayaan waxa markaa hadday wax macquul ah noqoto ay ku tallaabsadaan oo qabtaan haddii kale ay faraha ka qaadaan si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli maanta magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska uu ka furmay shir looga hadlayo arrimaha khayraadka Soomaaliya ciidaar Usmaagane TV-ga codka bariga Afrika Muqdisho